madaxweyne ninbaa habeen baa oday yidhi ilmo yari ku qeyriyey islaantiioo seexan waayo markaasuu yidhi naa waraabaha inooga tuur waraaba halkan show taagan suusa soo taagay islaantiikaasay tahay alla aanu tuura waraabaha qoodha iyo xeelada waa kuwaa isku raacay buuri siduu u taagnaa ayaa waagi barye oo nimayow anigu idanka waa doonayaa aabbihiina waa doonayaa hooyadiina wayna doonaysaa maxaa iscalaa taray dee inankii yaraada soo bixi waayey ila been baa la sheegayaa madaxweyne adigu waada komishan cusub inaada qabto waad ogolaatay xisbiyada mucaaradka waa ogolaaday guurtu waa ogolaatay baarlamo dadku waa isla wada ogolaaday waxaan kolba haddana marayoo dib u celinayaa waa maxay sayna kaa yar run baan dee laysu sheegahay waxaan ku leenahay niyahow madaxweynahay waddankan siduu imika iyo waad aragtaa sidaynu somalilan ku nahayna waad ogtahay annagu waxa dee hadal wax sheegma inaan wax tilmaanaabaan leenahay waxaanu ku leenahay sanad iyo bar baa doorashadu dib u dhacday iminkana sanad iyo bar kale ku socotaa se gaari mayso somalilan sanad iyo bar dambe oo bilaa doorashoa ma gaadhayso oo kuraasa lagu fadhii maayo dowladdu jiri mayso waddanku hadduu sanad iyo bar dambe ama sanad dambe bilaa doorashoa noqdo waayo waxa lagu kala dambaynayo dowlad lagu yahaybaa waxay ti maaro roogan doorashada lagu kala maarroobaya maaro roogan ku joogna maantana hebel iyo hebel baa la doortay maantana hebel iyo hebel baa la doortay haddana ka bedela haddana hebel iyo hebel baa la doortay or waxaanu ku leenahay doorashadaa labadaa ruuxa haweeneyda iyo ninkaa ina riya raac bedel laba kale kamaad waayin somalilaane laba qof oo kale keen annagu sidaasaanu kugula talinana hadalka cabdiraxmaan cire yidhi qudbisamanku annagu haddaad keeni weeyo sidaad yeeli weydo bedeli weydo hadalka aqbali weeyo dawgaa annagu geestayadanu halka cabdiraxmaan cire noo jeexo waddada noo jeexamaan anagu cagta saarana waxaan imanka aad iyo aadaan anu habeenkii uga seexano aan xoqdaa war 33 sannadood dalka ku jirteen ee ay isugu soo hadheen ee istoorateena madaxweynuhu ka dhashay madaxweynayaashu maxay idii kordhay maxay idii ka dhacay waxaan qabaa inaan waxay naga dhacay ma waxba inoo kordhin dadkii wuu kala fogaaday way isu calool xumaaday hareeraha waxa ka dhacaya hadiyo jeeraal waadiga og galbeed dab baa ka baxaya bari mid baa ka baxaya koonfur mid baa ka baxaya madaxweyne waxaa loo baahan yahay dee waxaasoo dabo inugu baxaya dab gudaheenna inuu ka baxaana ma wanaagsana waxaan maqlayaa waa berye iyo gabal dhacayba waxay haystaa madaxweynihii iyo guddoomiyihii xusbiga ayaa ishaystaa cabdilaahi ciro maxay isku haystaan baa laleeyahy waxay isku haystaan kuma shirkii oo marka hore uu cabdilaahi ciro wax ka sheeganayay waxay waddaba lagu heshiiyey in komisirkaa la bedelo haddana waxaa laleeyahay saaka waxaa la ysku haystaa laba xubnoodoo midba sharcigu uu ka mamnuucayo inuu meesha soo galo oo marka horena halkan xusbiga ka tirsanaa marka dambena kaa kale u wareegay iyo xubin komisirkii hore laga soo celiyey dadku wuxuu isweydiiyey maxaa labadan xubnood madaxweynaha ugu jira ummadda isweydiisay rag baa yidhi dee malaa madaxweynayaasha faaliya waxbaa lagu sheega cid baan joogtee malaa faal baa soo celiyey iyo saadaashan haweeney la sheegaya inale halkaa dabar idiga soo gelaysa iyo balaa idiga soo gelaysa madaxweyne dadkaa waxaa leh oo waxay haddana leeyihiin oo madaxweynuhu miyaanu xusbiga qudhiisa iyo cabdilaahi ciro isagu madaxweyne u ahayn miyaan loo dhaarinin ma dhaartii baa laga daaya wa xusbiga laguu dhaarin maayo hadda dadka isweydiinaya ma waxa laleeya waa loo dhaariyey oo hadday sidaa tahay maxaa ugu jiraa laleeya madaxweyneha markaa waa la garanaya waxaa ugu jira madaxweyne marka
laba nin loo garnaqayo ninku wuxuu iska reebaa wuxuu deedafeeyaa ninku isleeya ninkaasi markhaati beenaan uu kugu furaya wuxuu dhaha ninkaasi hebel aniga wayga deedafo maragiguma furo guddida ninka ku jira is yidhaha ninkaasi mara uu kugu qaloocinaya wuxuu idhaa kaasi guddida ima galo waa iga deedafo oo labada xubnoodba haddii la deedafeeyey sharciga iyo xirsiga iyo xeerka islaamku saddexduba waa isku ogolyihin inaanu soo noqon waxa u maraga marka maxkamadaha la isla galo guddoomiyaha garsoorka ninku markuu garan waayo kiiskiisa wuxuuna waa ku duray waradahaysi iyo mid kalu ula tagaa war labada xubnood way duran yihin madaxweyne sideebay u duran yihin waa la deedafeeye saddexdaasi markay soo dayn waayeen halkee laga soo daynaya maxaase adiga kuugu jira war waxaan leeyahay madaxweyne ummadana u dan maaha 5 sanadood imaka 2 bari baad maraysaa intanay kaaga dhamaatay adii cabdilaahi ciray ku dhamaatay waqtigii adii cabdilaahi ciray ku dhamaatay waqtigii aad lahayd 2 sano iyo bari baa ku waday ummadii looma shaqayn adigu maad shaqaysan oo ajariyay iyo abaaltoona maad shaqaysan intanay kaaga dhamaanaysaa waxaan leeyahay madaxweyne bedel madaxweyne dalka u tahay oo ka dulqaado waxaan oo dhaaf adigu ilaahay ka xishooda waar ubadkiina u tudha waar u tudha haddii baydankeeda leeyahay islaamnimada u tudha ilaahay ka baga kitaabka amarteen taxgeliya waa inta xukunka inoo haysa mid dhaama male waa wada riyo raac kan imaka la eedaynayo la leeyahay riyo raac baa la yidhaa waa isku mid wax alla waxay isdhaamaan male waxaad odhanaysaa inkaartan somalilan ku dhacday waa maxay ayaad odhanaysaa markaan fikiray waxaan idhaa waar inkaar baa somalilan ku habsatay inkaartu xagga idinka soo raacda ninba ninku ka liitay ayaa xukunkii inoo hayo kursigii inoogu fadhiya komishinkii hore la bedelay burcad buu ahaa burcad waxay isdhaafiyeen doorashadii bay isdhaafiyeen niman dhinac u shaqaynayay bay ahaayeen waxaanu doonaynaa dad ilaahay yaqaan oo la soo xulay oo aan u kala yeexanayn somalilan in meesha la keeno ayuu shicibku doonayaa nin riyiraac la yidhaa riyiraac waxaan odhan lahaa madaxweyne ninkaa riyihii u dir riyaha uu kaga magac baxay u dir adigu waxa weeye ninkan laysku hayo waxa laysku riixayo heerade si raganimada oo geesinimo leh ugu dhiiro baan ku leenahay